kulankan oo ahaa mid lagaga tashanayay sidii looga wada qayb qaadan lahaa wadada dhismaheedu socda ee isku xidhi doonta magaalooyinka Burco, Oodweyne iyo Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada, guddida horumarinta gobolka Togdheer ahna guddida gacanta ku haysa dhismaha wadadaasi, qurba joog salaadiin cuqaal aqoon-yahan iyo bulshada reer Oodweyne. waxaana ugu horreynba kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayarka magaalada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse, waxaanu ka warbixiyay ka qayb qaadashada dawladda hoose ay ka qayb qaadatay dhismaha wadadaasi. runtii golaha deegaanku muddada sanadka 2012 iyo 2013 waxay maamulka golaha deegaanka Oodweyne iyo goluhuba ansixiyeen 3 kiiloomitir oo lacag qadar ah $94,724 oo aan ku bixinay 3 kiiloomitir oo halka laga sii bilaabayo oo runtii uu maanta fadhiyo kontraakti qaatay oo saakana hawsha bilaabay. waxa iyadana noo farxada in 700 oo mitir oo daamir ah in la saaro wadadan horteena hormarta dawladda hoose oo iyaduna ku baxayso $44,818. waxay goluhu ansixiyeen 2013 inay ku daraan lacag dhan $100,000 oo u dhigmaysa ilaa 4 kiiloomitir. waxaa iyaguna kulankaasi ka hadlay guddida horumarinta gobolka Togdheer ahna guddida gacanta ku haysa wadada dhismaheedu socdo ee isku xidhi doonta magaalooyinka Burco, Oodweyne iyo Hargeysa, Suldaan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Awgood, Chief Caaqilmataan Xaaji Xuseen Cabdi Soofe oo ku hadlayay magaca qurba joogta ka soo jeeda gobolka Daadmareer ee wadanka Ingiriiska iyo Abwaan Hurro Walanwal, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu anagu qabnaa Oodweyne iyo Burco marka lagu xisaabtamayo wadada wixii daamir aan ahayn hawsha aanu imika ka qabanay ilaa kaba dheer iyo Burco 12 kiiloomitir isu jira iyo inta hawsha inta hadhay inay badan tahay intaanu qabanay kala doogow iyadoo 12 kiiloomitir imika qabanay intaanu dhoweynay ay tahay xaalbaha u hare waxaanu qabnaa marka labadan tog laga reebo ceelxuma iyo ceeg bilcile inta marka laga reebo inta kale waxa ka hawl badnay intaanu sareeda iyo ka qabanay Burco iyo kaba dheer qof kasta wixii wanaag uu qabto ilaahay agtiisu ka helaya horta waxa si dheeraada tan oo kale waxay leedahay taariikh la meelaa weyn yeelanaysa wax sadaqadaad bixinaysa adiga ilaahay baa isla og ilaahay agtiisa u tagaysa laakiin tan oo kale taariikhna way yeelanaysa lagu xasuusto mar walba lagu duceeyo xasanaadkii xagga Alla uu ku oolaya. gabagabadiina waxaa kulankaasi soo afmaray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer Farax Cabdulaahi Xasan oo ugu baaqay bulshada reer Somaliland gudaha iyo dibadba inay ka qayb qaataan wadada dhismaheedu socda ee isku xidhi doonta magaalooyinka Burco, Oodweyne iyo Hargeysa. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi lagu wareejiyay guddida wadada deeq lacageed oo dhan $27,000 Mareykanka oo ay qurba joogta ka soo jeeda gobolka Daadmareer ee wadanka Ingiriisku ay u soo wakiisheen. Cabdi Soofe oo ka mid ah qurba joogta ka soo jeeda gobolka Daadmareer ee wadanka Ingiriiska. Cabdikariin Maxamed Jaamac, shabakada caalamiga ah ee News.